gabadhan berisahayn baa jirtay gabadhu waa sheekadeeda waa iska maqmaqasheeno humuum bay lahayd qofka bani'aadamka uu yeelan karaa de humuumo waxay jecelayd inay nin lacag la guursato nin qurux badan guursato caruur badan dhasho 10 caruur oo 5 wiil iyo 5 gabdhood magacyada xitaa way sii qoratay oo bixin lahayd caruurta wixiiba way weydi dabadeedna way xanuunsatay macnaheedu kaliya aakhirkii waa iska amar ilaahay waa waat ila wixii bay weyday markay waalatay baa dhakhtarkii maanikoobiyada la geeyo isbitaalkii waalida la dhigay dhibarka mar alla markii isbitaalkii la geeyay ee waxoogaa iska yaraa hurdo heshay ayay waxay samaysay waxa uu maskaxdeedu tustay iyadoo ninkii heshay oo caruurtii heshay oo baabuurtii heshay oo qasriyada dabadna bahla yar caagagan yar toyska la yiraahdo ayay soo urursatay war Axmedow kaalay war Faaduma soo carar wixii bay ka sheekaynaysaa dabadna dhakhtarkii baa dawadii ka joojiyay waxay maxaa dhakhtarka dawada uga joojisay wuxuu yiri dhakhtarku haddaan hadda dawo siiyay ladnaato oo ay markii gurigii tagto caruurtii weyda ninkii weyda gurigii weyda maxay samaynaysaa damage-kii ku dhacay markii hore mid saddexlaad leeg ayaa ku dhacaya waxaan uga jeedaa siyaasiyiin baa saasoo waxay sawirteen iyagoo gudiyo magacaabaya iyagoo kuraas ku fadhiya iyagoo xilal hay wixii bay waayeen dabadeedna wixii oo dhan bay waayeen dabadeedna maxaa ku dhacay maalin kasta waa shir jaraayid maalin kasta waa waraq maalin kasta waa mikrofon maalin kasta waa qaylo wax alla waxaynu ku samayn karno sida gabadha ayna waxba ugu samayn karaynin ayayna waxba iska dhageysano qof suuqa jooga oo wadada dabka maraya gudi ma qoro dawladda dadka ka masuula sharciga ka masuula hadii la yiraahdo qof kasto suuqa jooga gudi ha soo qoro dalku soo noqonaya marka inay soo noqonayaan gudidu 20 kun oo gudi bay noqonayaan ila qof kastaaba wax la yiraahdo gudi soo qore dawladnimada maxay noo samaysanaa maxaynu madaxda u dooranaa maxay warqadu macna u samaynaysaa inaan magacaabo sharmaarkee waa dawladnimada laakiin haddii qof suuqa jooga soo magacaabi kara ka war dawladnimada waxaasi أنا waxaan isleeyahay waa gabadhaas oo xaalkeeda aad baa mahadsantihiin oo idin mahad celinaya halka waxaan rabaa